madaxweynaha kubadda cagta ee Afrika ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho waxaana uu la kulmay madaxda federaalka Soomaaliya. Faahfaahinta warkaasi waxaa noo hayay wariyahayaga nooga soo warramay magaalada Muqdisho Haajir Cabdiqaadir. wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha kubadda cagta qaaradda Afrika Mr. Axmed Axmed ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye, gudoomiyaha xiriirka Soomaalida ee kubadda cagta Cabdiqani Saciid Carabi iyo mas'uuliyiin kale. waxaana uu kormeer ku tagay goobo muhiim ah ciyaaraha sida Stadium College, jaamacadaha iyo garoonka isbartiimada oo xilligan fariisan u ah ciidamada nabad ilaalinta ujiga Soomaaliya ee AMISOM. hase yeeshee waxaa la sheegay in wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha kubadda cagta qaaradda Afrika oo ay weheliyeen wasiirka wasiirka difaaca, wasiirka dhalinyarada ciyaaraha iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda ay AMISOM u diiday in ay gudaha u galaan garoonka dadan ee isbartiimada si ay u soo indheeyaan, balse waxa la sheegay in markii dambe uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu arintaas soo fargeliyay isla markaana uu amray in wafdiga ay boqdaan garoonka ciyaaraha ee Stadium Muqdisho. sababta ay AMISOM u diiday in wafdigan ay gudaha u galaan garoonka ayaan la ogeyn, balse dhowr jeer hore ayay AMISOM diiday in gudaha loo galo garoonka maadaama ay fariisimo ciidan ay ku leeyihiin isla markaana ayaan ogoleen in saxaafadda ay sawir iyo muuqaalo ka qaadaan. wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye oo kamid ah wasaaradii ku soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, madaxweynaha kubadda cagta qaaradda Afrika Mr. Axmed Axmed ayaa ugu hambalyeeyay talaabadii uu Muqdisho ku yimid, waxayna tani ay dhaba u xariisay Baytiri in madaxda dalka daneeya Soomaaliya ay ku soo dhiiradaan inay soo gaaraan dalka. waxayna sheegtay in uu hore u ballan qaaday xilligii oo liisa doorasho ku jiray in haddii la doorto uu safarkiisa ugu horeeyo ku tagi doono Soomaaliya. waa maalin taariikhi ah, waa maalin aanan idiloobi doonin. xilka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta wuxuu hayaa bil. waxaa la doortay 16 Maarso, shalayna waxay ahayd 16 Abriil, maanta 17 lagu gudaysay. taasaa igu dhiirigelisay inaan markaas xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, dawladda iyo ra'iisul wasaaraha oo hormuud u ah xukuumaddaas igu dhiirigeliyay wasiiradeena. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee jasiiradda Madagaskar Axmed Axmed ayaa bishii Maaj ee sanadkan loo doortay gudoomiyaha cusub ee xiriirka kubadda cagta Afrika ee Confederation of Africa Football kadib markii uu ku guuleystay gudoomiyihii hore Ciise Xayaato oo u dhashay dalka Cameroon oo muddo 29 sano ay xilkaasi. waxaana booqashadaani noqonaysaa mid taariikhi ah oo u gool xareysa booqashada madaxweynaha FIFA oo isna lagu wado inuu yimaado Soomaaliya bilaha soo socda. Haajir Cabdiqaadir Nuur, warbaahinta SBC magaalada Muqdisho.